السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوّا channel كنا أحمد FJ official. آدي أدبر سلامتنا أصحاب تدقالجا ميل والبد أدوينا كتشوكتان. معلومة عن دمورنا أصحاب تدقالجا اسمنا واكل بدني لكن واحد ترى أهرن معلومة عن دمورنا أنكم مشكل صناعة وحنا على حي. مركا أن اللي وداقو إن الميل في عن جالسين دونتان هدو إلها إدمايو. مركا واحد ترى فيديو اللي يقصد دراي معلومة عن دمورنا إنستغرام كيجا. فيديو جاسوحة. ويل يرى دلني يرى أول جرا عيات معلومة عن دمورنا اللي لسه وداقاي. مركا wiilkii ii soo diray waxa uu igu dhahay brother waxa ka codsanaya in aad ka soo hadasho marka wiilkii waxaan ka codsaday inuu arimahan yaani in yar ila socodsiyo si aan bulshada aan la soo wadaago ka bacdi aan arinkii fiican meel dhigno marka wiilkii yara dhalinyarada markii uu sameeyay wiilkii yara hooyadii dhashay ayuu la soo hadashay oo igu dhaado hooyo please waxa jira wiilkeyga ayaa liibiyeyga xidhan muddo badan baan la garaacayaa mana awoodo inaan maanta wax ku taro mar walba baan xalay way qashiyaa way tir dhawaaqiisa ama garaacitaankiisa laakiin ma awoodo tiri inaan maanta garab istaago sida ka daalig meesha aan degana waa kiro waa guri aanan lahayn sida ka daalig maanta ma u gadi karo waxna ma uga awoodo dhahday iyada laftigeedu waxa badan baahaya ilaahay inuu ka caafiyo rajeena oo uu ka dulqaado marka sida ka daalig asxaabtada qaaliga waxa rajeynaya videogaas marka aad aragtaan inaad share gareysaan la wadaagtaan asxaabta kale si ay magaranaysa bulsho uga soo dhaxbaxdo maanta maamada garab istaagta kuna garab istaagta in ay wiilkeeda meeshaas iyo dibkaas loo geeysan una fududaato si ay wiilka meesha uga saar lahayn marka boqol waxa rajeynaya in aad share gareysaan asxaabtada qaaliga bal waxaana rajeynaya intaanan hadalka idinku badan in aad wada fiirsataan video geer ka bacdi ayaan hadalka iskugu soo laaban doonaa يا تذكي خطاوي وانا بحيا asxaabtada qaaliga ma sii fiirsan karo waa wiil yar oo dhalinyaro oo mustaqbal leh biliis waxaad ka codsan lahaa hadii aadan awoodin inaad caawiso maanta waxaad ku caawisaa inaad share gareyso maanta bulsho badan baa igu xidhan codkayguna meel dheer buu gaaraya waxaana la iga codsaday maadaama codkaygu meel dheer gaarayo inaan la wadaago waxaan kaloo idin tusi doonaa maamadii oo hadlaysa iyaduna idin ka codsanaysa asxaabta igu xidhan in ay meel dheer u gaarsiiyaan codkaas waa hooyada kale maanta waxa rajeynaya markaas in aad garab istaagto ku caawiso wixii karaankaaga ah hatta ha haato wax yarne bal inaad ila fiirsataan baan rajeynaya maamadii dhashay iyo dhibka haysta ilaahay waxa rajeynaya inuu ka dulqaado inaguna waxa rajeynaa in aan isku garab istaagno sidii maanta aan maamadaas ula garab istaagi lahayn sidii uu wiilkeedaas uga bixlaa meesha assalaamu calaykum dhammaan ummada Soomaaliyeed waan salaamayaa marka Axmed Maxamed FJ waxaan ka codsanayaa hooyo videogeegan inaad ma aragtay ummadda kugu xidhan inaad ii gaarsiiso ayaan doonayaa hooyo ilaa caawiyo sida hooyo igu gaarsiiyo ummadda kugu xidhan asxaabtada qaaliga waxa aan rajeynayaa in aad wiilka yar dhalinyarada aragteen ee mustaqbal kale in aad garab istaagtaan maanta hadii aadan awoodin inaad maanta wax siiso hatta $1 ilaahay ka dhig gaarsi walaalada ama gaarsi asxaabta kale sida ay wax ula qabtaan maamadaas please ifka lagu yahay walaal de waxaana fiican inaan aakhiri adduunka wax wanaagsan shaqeysano waxaan waa wax maanta aan ka dhamaan doono laakiin wax wanaagsan markaan shaqeysano talabaadna ajarka iyo xasanaad kaliya maahan idinkuna wada la qabtaan maadaama ila dadaalisaan marka asxaabtada qaaliga waxaan rajeynayaa inaad meel fiican gaarsiisaan maamadaas idinku codsatay inaad meel fiican u gaarsiisaan codkiinuna maanta uu yahay mid dhawaaq dheer sameynaya ama meel fog gaaraya please waxaad ka codsan lahaa Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan ka codsanayaa in ay wiilka yar dhalinyarada caawiyaan adduunkuna ma garanaysaa in la isku caawiyo wanaagsan waa wiil yar oo mustaqbal leh halkan waad arkaysaan dhaawaca kaga yaala iyo dhibka loo geysanayo ninka arxan darada haaba haysta marka asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa ama aan idin ka codsanayaa in aad share gareysaan asxaabtiina aad la wadaagtaan waxa jirta maamadaasi inay aad iyo aad u xanuunsanayso oo aad iyo aad u dhibaataysan tahay meesha ay degantayna ayna lahayn waxay dhahday wallahi hadal bay ugu dhahday meesha aan deganay hadii aan lahaan laabay tiri يعني ما أنت واحد شعلي سنة إن أنويل كيجا ماشى كساره لكن ما أودو بدهذا
marka bilis idinka gacanteedii kala ah ama idinka gacanteedii midig ah ee bilis caawi iyada laftigeedu xataa way xanuunsantay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ka dulqaado waa maamo waa hooyadii ku dhashay anigana ay dhashay waxaan jeclaan lahaa maanta inaan garab istaagno kuna garab istaagno wixii aan awoodno xataa maahan adduunun waxaad ku magaranaysaa ku caawin kartaa inaad meel dheer u gaarsiiso waxaad ku caawin kartaa inaad qof kale la wadaagto waxaad ku caawin kartaa inaad meel fiican u gaarsiiso aniguna halkan waxaan u soo istaagay inaan ku caawiyo kuna garab istaago wixii karaankayga anigoo kaa garaneen bulshada ugu xidhan dhammaantoodna waxaan ka codsan lahaa inaad meel fiican u gaarsiisaan bal video yaro kale oo ay soo dirtay baana jira oo ay idinla hadli doonto bal ila dhageystaan rajanahayna dad baa iskale markaa buul baan ku duldhistay markaa in jagadan haddaan anu lahaa wadee waan u iibin lahaa anu meel baan iska geli lahaa hooyo waa taas hooyo wallahi waa taas waxaa tiri gurigan aan deganahay haddii jagadiisa yacni jaga waxa la dhulka aan lahaan laabay tiri meel baan iska geli lahaa ama meel baan maanta iyadoo taacbaan oo xanuunsan xataa waxay jeclaan lahayd inay iyadu meel xum u gasho wiilkeedaasna ay ka saarto bal markaa waxaan rajeynaa inaan sii wada dhageysano markaa jagadana anu ma lihi waxba waxaan isaga u dirana waa waayay markaa waxaan maxaa la yidhahdaa ilaahi mooyaane wax kaloon haysto ma jirto ilaahay wax ka sokeeyana yes ilaahun baa wax walba u qabta ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ka saaro dhammaan ummadda dhibaataysan oo dhan dhibaatada wax wanaagsan insha Allah ilaahay u qaado oo wanaag ilaahay ugu bedelo wiilka yar dhalinyarada mustaqbalkan lana caawiyana daloolna asxaabtada qaaliga inagun baa maanta wax sameyn karna inagun baa dhalinyara ama da'yar ah oo maanta meel fiican gaarsiin karna si ajar iyo xasanaad aan uga helno dhamaanteynba dadka igu xidhan iyo anigaba waxaan rajeynayaa inuu meel fiican gaarsiisan qof walbaabana maanta uu isxilqaamo iniga ma aragtay iniga niga odsanaya marka lacagtii inaan ka yar lagu dilayana waa $12,000 $12,000 de bal hal mid kale aan idinka loobe lacagta wiilkeer lagu garaacayo ama se lagu haysto waa $12,000 wiilka hooyadii baad ka maqasheen lambaraantuna halkan bay ku xusan yihiin waana arki doontaan waana soo dhigi doonaa dhamaantiinba xataa commentiga waa soo dhigi doonaa bal wada socod wanaagsan bal halkeen ka keeni maalin dhaweed waa la ii soo ururiyay $1,500 baan hayaa imika gacanta ku hayaa waxa la yiri tabar ma soo diri karaysid hadii kale halkan uu ku dhimanayaa la yiri imika isagoo dhacaan ka socdo meel kasta ka socdo xanuunsanaya ayaa la igu yiri maxaa la raadaay lacagteeni dhaneed haddaad soo dirto mooyaane hadaba ma soo diri karaysid halkan uu ku dhiman haddaad lacagteedii soo diri weydaa la igu yiri aniguna de haaladeeda ilaahay un baa og marka hadiyo jeer aniguna waan xanuunsanayaa marka haaladeeda ilaahay un baa og wallahi waxa idin sheegtay xaaladeedu inuu ilaahay og yahay maantana ayna waxba awoodin lacagto dhameystiran mooyana xataa 1,000 lagama ogola inay soo dirto 1,000 shilin xataa inay dirto lagama ogola lacagto dhameystiran mooyana sida ay idin sheegtay $2,000 bay haysaa $2,000 $12,000 waa laga rabaa please inaad caawisaan maanta wixii aad ku garab istaagi kartaan ku garab istaagtaan labada lambar maamada ayaa magaranaysaa kala xiriiri doontaan anigana insha Allah wixii aad iga baahataan waa idinku garab taagana mar walba hooyo waxba ka warwaran baan ku oran lahayn insha Allah waxaan rajaynayaa inuu wiilkaaga halka kaaga saaro oo magaranaysaa sida aad rabto maanta ilaahay uu kaaga yeelo haduu ilaahay idmaayo muuqaalkana asxaabtada qaaliga inaad ku dheereeyo ugu talagalin waxaan rajaynayaa inaan maanta caawino hooyadaas ilmeenaysa jecel wiilkeeda iyadoo xanuunsanaysa oo aad arkaysaan xataa inay magaranaysaa halka ay idinkaga codsanayso inaad garab qabataan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan oran lahaa garab istaaga ku garab istaaga maanta wixii aad awoodaan $12,000 baa laga rabaa bay tiri wiilkeyguna wuxuu ku xidhan halkaasi Liibiya waanaad arkaysaan saa loo garaacay xataa isha يعني والله ديق كسعدا إن إيش لفت جدو داوع عقبته ما كور من كرنو مركب بليس وحن تعلان لا إن العاوسان كنا عاوسان وحدا ودان وحول بنوا إذين شكتي وحتى هذا لا يريد مقرن وان قيرسنا سداك الدالك مركب وحتى هذا لا أنك إلوي وأخا إن إذين شيء $12,000 إن لجربه أو ويل كيدونا مقرن سهل كهلو لبعتين مر والبابا ويل يرد أن يرى أي يقص حري ويل كايرنا مانت وحي ugu dadaalay wallahi wuxuu ugu dhaca jaamacad baan dhigtaa meeshuna waa Boorama jaamacad baan dhigtaa bulu saaxib
mar walbaabana waxaan ugu dadaalayaa marka walbaaban jaamacadda ka imaadana aan uga warhaya inaan maamadaas ku garab istaagno wax walbana waan sameeynu dhahay brother waana kugu xidhan u dhahay waxaana rajeynayaa bulshaweynta kugu xidhan ee codkaaguna uu meesha dheer gaari karo iyagana uu gaari karo in ay ku garab istaagaan inay wax la qabtaan maantana wixii ay awoodaan fideogana ay u share gareeyaan maamadaas si uu meel fiican ugu gaaro dadkuna ma garanaysaa dadka jecel inay wax baxsadaana ay u arkaan marka asxaabtada qaaliga waxaan idin rajeynayaa maalin wanaagsan waxaan idin leeyahay alla caafimaad hayna siyaan leeyahay insha Allah intii dhibaataysan Ilaahay baa ka dulqaadan kara Ilaahay ka dulqaadan leena maamadaasna inaad caawisaan baan rajeynayaa ood maanta ku garab istaagtaan wax walbaaba oo aad awoodaan ha ahaato lacag ha ahaato inaad fideogan u share gareysaan bulshada kale u la wadaagtaan wallahi xaaladda markaan arkay aad iyo aad bay xanuujisay maamadii xataa way idinka codsatay idinkoo ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed in aad meel fiican u gaarisaan marka muuqaalkeena maanta inaad ku badiyo kuma talgelin lambarkeedana commentigana insha Allah waa soo dhigi doonaa halkana waa soo dhigi doonaa kaasaad kala xiriiri doontaan wixii aad awoodaan ugu dir doontaan marka muuqaalkeena maanta intaas uu nugaagay